بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله mahadle maanta degmada Dobley oo noogu suurtagalay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo nasiib u yeelatay in markii ugu horeysay aan shir ku qabanno ka baxsan xarunta dowlad goboleedka Jubbaland taasoo ujeedka laga lahaa ahayd degmada Dobley oo aan u mahadcelinayo shacabkeeda maamulkeeda ciidamada amniga soo dhaweynta diiran ee golaha wasiirada maanta ugu sameeyeen deegaankan oo ah magaaladoodii oo ay marti ku ahayn iyo goobtan quruxda badan iyo hoolkan loo diyaariyay golaha inuu shirkooda ku qabsoomo shirkaas oo ajandayaal fara badan lahaa laakiin kuwa ugu muhiimsan ay ahaayeen ansixinta degmooyinka Buurdhuube iyo Dobley iyo ansixinta miisaaniyadda dowlad goboleedka Jubbaland 2022 runtii dowlad goboleedka Jubbaland oo horumar weyn ugu tallaabsatay xagga adeegga bulshada waxay maanta ugu bashaareynaysaa shacabka reer Jubbaland in la meel mariyay degmooyinka Buurdhuube iyo Dobley oo golaha wasiirada ansixiyeen kadib markay buuxiyeen shuruudaha degmo looga baahnaa taasoo sii socon doonto meel walba oo u qalanto inay degmo noqoto oo guddiga qiimeynta golaha wasiirada u saareen intay dul istaagaan ku guulaysato noqon doonto ina mustaqbalka ilaa ay isu bedesho gobollo in la gaarsiiyo deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland dheeri ah inay ka soo baxaan oo kuwa hadda ka jira ka badan oo xaq u leeyahay state-ka inuu meel mariyo guushaas oo aan u soo dhaweynay dabaaldeggaas inaan magaalada degmada Dobley la qaybsanno ayadoo ay xig doonto sidaan oo kale inaan degmada Buurdhuubana ku qabanno shirka golaha wasiirada oo aan la qaybsanno dabaaldegga shacabka ku nool deegaanka Buurdhuuba ay u dabaaldegi doonaan hirgelinta iyo xuquuqda deegaannimada maanta la meel mariyay waxaan ugu baaqayaa biyo sacbadaada looga dhargaa dadka reer Jubbaland maanta waxay leeyihiin calan dastuur baarlamaan astaan qaran u ah dowladnimada federaalka Soomaaliya iyo kobaceeda iyo hirgelinta federalismka nidaamka ah oo loo daadejiyay awoodda dadka heer state iyo heer dowladaha hooseba la meel marin doono inay qayb ka qaataan iska daayaan xiqdiga qabyaaladda qof nacbaysidka lugooyada aan waxba u soo kordhinaynin oo Soomaaliya daashatay gartaan hadba intii wada degan inay isku dan yihiin walaalo yihiin wax wada qabsadaan ayadoo qof walba waxa uu umadiisa u qabanaya lagu abaalmarinayo oo aan la eegaynin yuu yahay iyo xagee ka soo jeedaa marka guushan maanta aan wadadan dhabada cagta saarnay inay nala xaqiijiyaan muddada annaga aanu u haysanaa waqtiga mandate-ka noola siiyeyna ay nagu gacan siiyaan ayadoo isu qori dhiib arrinta noqonaysa oo qof walba uu xaq u leeyahay hoggaanka iyo ka qayb qaadashada deegaanadan horumarintooda in loo maro mar walba xeerarka noo degsan iyo dastuurka qof walbana uu ku talagalo horumarinta nidaamka la kala dhaxli lahaa iyo hay'adaha adkeynta hay'adaha dastuuriga baan ka codsanaynaa waxaan ugu baaqaynaa kuwa cadowga nagu ah inay ka soo noqdaan waddada khaldan ummadooda ay farxadda la wadaagaan annagana waxaan u ballan qaadaynaa inaan soo dhaweyno la cafiyo
aan la dhihin shalay qofka muxuu ahaayee maanta muxuu yahay in lagu abaalmariyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.